وإلهي مهديس مانتي إن كسو قيب قالوا فريتانكي وددا دبك هوستي ساهد ساعدنا وحي كدنبيو waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho u sheegaya inaan ku wareejiyay mas'uuliyadii magaalada iyo wadooyinkeedii iyo amaankeedii taliya xijaar wabillahi tawfiiq waana mahadsantihiin waxaan rabaa nabadda inaad sugataan oo nabadda gacana bir aad ku qabataan marka walaalahay kulli waa mahadsantihiin taliyihina waa kana ku wareejiyay aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan soo booqdo wadadana aan furno saadarteed waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay furitaankan waxaan rabaa inaan ku wareejiyo taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed isgooska Mirnaay Soomaan meeshan taagna waa ka codkaas rabin aan ka maqlo waa kaas marka waa mahadsantihiin billahi tawfiiq idinkana ajr iyo xasanaad Allah idinka siiyo aad u mahadsan farxad weyn iyo guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho oo aan rajaynayo inay maanta wixii ka bilowda ay nabad ku naaloon doonaan nabadii hore u jiri jirtay ay dib ugu soo noqon doonto waxaan rabaa halkan inaan ka xuso far kaliya foolma dhaqdo waxaan rabaa dhammaantiin inaad mas'uuliyadda ila qaadeen guddiga fulinta guddiga waa inuu igu daba galaa oo hawsha sidii loogu rabo ugu qabtaa madaxweynayaasha hore waxaan ka codsanayaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaarihii hore iyo musharaxiinta dhammaanteen mas'uuliyadana saaran roble kaliya lagu halaynin sababtoo ah doorashaad ii dirsateen inaad idin maamulo cadaalad iyo si nabadgelyo si xor ay u dhacdo marka tan hadii la ii saaro hadda taasaan gacantayda ka baxayso marka waxaan rabaa gacan ayaad kaga baahanahay insha Allah hadaysan waa doontii dhinac ka duleeshamin marka gacan ayaad kaga baahanahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho waxaan leeyahay idinkana gacan ayaad kaga baahanahay maanta wixii ka dambeeyo mas'uuliyadda amniga waxaan rabaa inay adkeeyaan hay'adda booliiska Soomaaliyeed oo ah hay'adda ugu sarreysay amniga magaalada Sugayso waxaan rabaa hay'adda booliiska Soomaaliyeed ciidamada booliiska Soomaaliyeed inaan amro faro inay ilaaliyaan amniga muwaadinka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan amnigayga amniga madaxweynaha amniga musharaxiinta iyo amniga qof kasta oo Soomaaliyeed saadarteed waxaan rabaa inaan cidna lagu xadgudbin cidna dib loo geysan in la ilaaliyo kaliya oo amniga qof kasta oo Soomaaliyeed marka taas ayaan farayaa waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka sheego walaalahay musharaxiinta ah insha Allah waa idinka ballan qaadayaa inaan qofna xigsan doonin waa idinka ballan qaadayaa in doorashadaasi xor iyo xalaal ay ku dhacayso marka insha Allah qalbigiina khayr u sheega laakiin gacan idinkaga baahanahay haddaan aragiina waayo haddaan waayo hadda biyaha meeshaas ka soo galaan la socda ciidamada waxaan leeyahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan goobahooda ay ku noqdaan ayaan farayaa qof ciidan oo lagu xadgudbayo ma jiro ciidanku ma lahan xaafid iyo mucaarad ciidanku ma lahan kana qaldana iyo kana saxsana ciidanku waa mid waa ciidanku waa ilaaliyaha guud ee qaranka ciidanku waa la dagaalaha al-shabaab argagixisada al-shabaab marka waxaan leeyahay ciidanka midnimada adkeeya